xilli wadanka uu ku jiro waqti doorasho ayaa magaalada Muqdisho waxa maanta lagu qabtay munaasabad looga hadlayo doorashada Soomaaliya xasaradaha ka dhici kara iyo sida looga hortagi karo kulanka waxa ka qayb galay Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyow oo gudoomiye ah xubno iskood isku magacaabay oo la baxay golaha ka hortagga xasaradaha doorashooyinka ka dhasha Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo gudoomiye ah hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahan Cabdi Axmed Biif oo hore u soo noqday wasiir mas'uuliyiintan ayaa si qoto dheer waxay u taxliiliyeen caqabadaha xilligan ku hareeraysan doorashada iyo waliba waxa ka dhici kara marka doorashada la guda galo maadaama natiijooyinka soo bixi kara aanay qaarkood ka qoslin murashaxiinta laga guuleysan doono aqoon-yahan Cabdi Axmed Baafe ayaa ugu horeyn waxa uu isdul taagay cabsida iman karta haddii doorashada si sax loo maamulin ee la boobo kuraasta lagu tartamayo waxay tahay in la boobo kuraasta la boobo takalana waxay tahay in qofka imaanaya usan ku imaanin karti iyo kalsooni uu dadweynaha ka haysto ee uu ku yimaado jeebkiisa uu ku yimaado isaga iskeenay maartay boobka yani tii noogu dambeysay 2016 boob baa dhacay laakiin markaad u fiiriso kuraasta 275 ahayd markaad u fiiriso tirada la isku qabsaday tira waxay ahayd aan ahayn tiradii guud oo dhan aan wada ahayn qayb ka mid ah bay ahayd sanadkan waa la wada ilbaxay waxaa ilbaxay dadka wax raadinaya waxaa ilbaxay maamulayaasha mise way bateen yani wax raadi nidaamka iyo dalgoldololadiisa inta la bartay oo la arkay in lagu dhiiran karo mataqaanaa la arkay baa waxaa loo soo jeestay in wax la wada boobo ay qofkii qof wax u boobi karana inuu u soo boobo kii jeebkiisa wax ku keensan karana inuu wax ku keensado mataqaanaa gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa isaguna dhankiisa sharaxaad waxa uu ka bixiyay sida ay diinteena islaamka u xaaraantimeysay in laaluush lagu bixiyo si kursi ka mid ah kuraasta lagu tartamayo oo shakhsi ugu guuleysto wuxuu qabaa maadaama qofkan yani xil loo dhiibayo qofka moogta qofkan qof aan la masruufaya ma qof noolaan waayay oo ma aragto cunto loo raadina ma qofkan waa qof la rabo inuu shaqo ma aragto qabto ummadii marka waa inuu aado qof sifooyinkii leh marka waa ka xaaran asagu inuu lacag ku raadso waa ka xaalan uma banaana maxaan ku yiraahdaa maxaa yeelay lacagta uu ku raadinayaa si hadda la sheegayo xagee la keenaya kadib markii uu galo lacagta ku soo galay lafteed inuu raadso soo ceshado buu raadinayaa marka xaraan buu ku soo galay xaraan buu ku joogayaa xaraan buu ku raadinayaa xaraan buu ka sii mushtarahayaa xaraan buu ku soo noqonayaa marka dambe xataa Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyow oo gudoomiye ah xubno iskood isu magacaabay oo la baxay golaha ka hortagga xasaradaha doorashooyinka ka dhasha ayaa isna farta ku goday sida uu arka xalka si looga baaqsaday inuu gacan ka hadal yimaado marka doorashada la guda galo amaba uu soo dhamaado horta halka waa mid aad u dhib badan maxaa yeelay waxaa laakiin dhaqankiiba maadaama uu halaysan yahay siyaasiyiinta oo xalaal xaaraantiiba xalaal laga dhigto lacag in la kala qaato wax la kala gato oo dhowr qofood oo soo xushay ay wax sameeyaan horta aad u badan laakiin aniga waxaan rabnaa shacbiga Soomaaliyeed aqoon-yahan dadka mas'uuliyiinta ah amba ha ahaadaan culimo ha ahaadaan ama bulshada ha ahaadaan amba odayaal dhaqameed ha ahaadaan amba ganacsato ha ahaadaan amba wax garad kasta Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ka jooga ha ahaatee waxaa aniga qabaa inay u istaagaan maanta inay u istaagaan Soomaaliya in laga badbaadiyo colaad cusub inay ka abuurto xasara inay ka abuurto in la isku dilo arrinta waxaa ka dhaatooda laga rabaa Soomaaliya 22 sano hadda maraysaa laga soo bilaabo carta waxaa la rabaa 4.5 aan dhex jirnaaye oo kama baxayna hadda waxaa la rabaa sida ugu fiican 4.5 dhexeeda inaan uga shaqeyno oo madax sax dabaan sax la soo doorto si kastaba Soomaaliya ayaa isu diyaarinaysa qabashada doorashada madaxtooyada inkastoo aan la ogeyn rasmi ahaan xilliga ay bilaabanayso haddana waxaa soo dhamaatay doorashada inta badan xubnaha aqalka sare halka golaha shacabka laga soo doortay 2 kursi oo kaliya waxaana la filayaa in toddobaadyada soo socda guud ahaan maamul goboleedyada ay ka bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka hoose baarlamaanka 12aad ee dalka